السلام عليكم أصحابت soo dhawaada maanta waxaan idiin soo gudbinayaa cashirkeenii lixaad ee ku saabsan casharadii ku saabsanaa Microsoft Word tutorials kii lixaad ayaan maanta soo gudbinayaa cashirkeenii lixaad maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa wax loo yaqaano table okay waxaanu eegi doonaa afartan ciwaan ayaynu eegi doonaa intaynu ku dhex jirno cashirka table-ka laba baarti ayaan ka dhigi doonaa maanta in baynu qaadan doonaa table-ka haddii Allah wada la idmo cashirka ku xigana waxaanu qaadan doonaa qayb marka maanta waxaanu qaadan doonaa shantan ciwaan ayaynu qaadan doonaa ama shantan shay ayaynu qaadan doonaa marka ugu horeysa waxaan qaadan doonaa waxa loo yaqaano insert table in table soo gelino marka xiga waxaanu qaadan doonaa waxa loo yaqaano style table in table-ka style ku sameyno oo aynu hagaajino marka ku xigta waxaanu qaadan doonaa waxa loo yaqaano inay soo gelino rows iyo columns inaynu copy iyo paste ku sameyno iyo weliba cut columnska iyo rowska inaynu rows dheelidno haddana columns aan dheelidno haddana aynu table-kooda dheelidno intaa ayaanu qabanaynaa insha Allah haddii Allah wada la idmo marka aynu isla socono waxaan soo gelinayaa marka ugu horeysa waxa loo yaqaano table-ka ayaan soo gelinayaa marka ugu horeysa insert ayaan tegayaa xagga taababka sare ama menu-ga sare waa kan halkan ayaan tegayaa laba hab ayaan soo gelin karaa table-ka habka koobaad inaad drop down list-ga soo furtid kabacdina aad tiraahdid kabacdina aad saa u dooratid inta row iyo inta column aad dooranaysid hadeer laba row ayaan doortay xaggana laba column ayaan ka doortay waka halkan isugu soo sawiray matalan baa waxaan dooranayaa afar row iyo afar column afarta row waan haystaa afar column aan ku daro saddex column weeye column afraadna aan ku daro waka afar row kow labo saddex afarta row waxa weeye kow iyo labo iyo saddex iyo afar afarta column waa kow labo saddex afar waka okay table-ka way soo gelinay kaas waa qaab aan control sar dhaho saan qaabka labaad tijaabino control sar ayaani qaabka labaad ayaan tijaabinaa qaabka labaad waa inaad tagtid insert table tagtid halkaas aad soo furtid drop down-ka meeshii aad sidan u dooranaysay inaad tagtid halkan inaad halkan tagtid aad tirahdid insert table aad tirahdid then halkan aad cayintid inta column aad doonaysid iyo inta row aad doonaysid marka hore saas aad dooranaysay laakiin hadda by number baad u gelinaysaa hadda columnska waxaynu gelinaynaa columnska afar column rowskana waxaan gelinaynaa afar column sidii kii hore oo kale dabeetana waxaan dhahnaa okay kii hore oo kale ayaan soo gelinay marka labada habkii ku fudud dooro next thing aan rabnaa inaan qabano waxa weeye inaynu style ku sameyno table-keenan oo aynu yara qurxino table-ka halkan oo kale ayaa tegaysaa drop down-kan ayaa soo furaysaa waxaan oo dhan waa style loogu talagalay template oo diyaarsan loogu talagalay inaad isticmaashid matalan baan waxaan doortay ka green-ka baan doortay qaabkan kugu soo baxaya waa isaga macnaha waa style diyaarsan oo loogu talagalay inaad table-ka ku habaysid xaggan sare haddaynu eegno table-ku meesha ku qoran tahay laba waxaa jira laba nooc uu table-ku kala baxaya ama laba qaab baa uu kala baxaya table-ku oo ah design iyo layout marka layout-ka maanta gudbayno insha Allah ama qaybaha dambe ayaynu wax ka arkanaa laakiin hadda inta hore design-kaas aynu eegnaa design-ka markaad timaadid halkan drop down-kana soo fursaa kuwan ayaad mid ka dooranaysaa siin haddii cagaarka uga dooranayo oo kale xaggan oo kale haddaad tagtid qaybtan ugu horeysa cagaar tikha ayuu ka dhigay waa header-ka macnaha markasta waa muhiim inaad ka dhigtid color fiican inaad ka dhigtid si uu kugu soo baxo oo uu color dee uu caadi header-ka ugu muuqdo hadda halkan tigta ka qaado wuu ka qaadayaa haddaan saaran uu saarayaa waa inaad markaa header row-ga ugu horeeya waa inaad tigta ku saaran tahay color-radan mogtahay sida order-ka u samaysan macnaha sida isdhaafka u coloreynayo rowska rowga ugu horeeya color row kala cadaan row kale halkan oo kale ayaad ka dooran kartaa haddaan ka qaado hadeerta wixii cadaan buu ka dhigayaa laakiin haddaan saaro banded rows baa lahaa haddaan saaro wuu coloreynayaa sidoo kale
kuwan waad ku dari kartaa bind column halka kale hadda kan rowga koobaad baa color leh, rowga labaad waa cadaan, rowga saddexaadna color buu leeyahay. sidoo kale columnska waad ka dhigi kartaa, columnka koobaad row midab yar, kan labaad cadaan ka dhig, kan saddexaadna midab yar, saas kaloo dhigi kartaa. waa kan bind column baad dhigi kartaa oo ka color weeye aan rowga ka qaado saas waan u aragtaa. rowgan ka tiro ka column koobaad, column labaad, kan saas dhigi kartaa. okay styleka table-kana intaan ku dhaafno shayga xigay aan doonaya inaan maanta aragno waxa weeye waxa loo yaqaano table-keena row soo gelino columns soo gelino. okay row iyo column aan kala garanaa waa jiiftax iyo joogtax. sidaas waxaa la dhahaa inta aan highlight gareeyay waa maxay, waa column. haddaan xagan tago oo aan intan highlight saarana, inta aan hadda highlight saaray cagaarka ahina waa row. marka row iyo column waa la fahmay waa filaya. joogtaxaas waa column, jiiftaxaasina waa maxay, waa row. marka waxaan rabnaa inaan soo gelino row iyo column labadaba. marka ugu horeysa waxaan soo gelinaynaa row, habab kala duwan ayaad soo gelin kartaa. inaad halkaa tagtid oo dabeetana aad calaamadda yar plus-ka ku dhufatid, dabeetana uu soo dhex galo cagaarka iyo rowgan kale, rowga cagaarka iyo rowgan kale dhexdooda uu row kale soo galo. baan tijaabino, plus-kaas aan ku dhufanaya, row kale soo gelaya. wakaa row kale ayaa soo galay. muddo 5 row ayay noqdeen. 1 2 3 4 5 row ayay noqdeen. habkaas waad soo gelin kartaa. waxaad kala tagi kartaa xaggan ayaad tagi kartaa, layout ayaad tagi kartaa. layout markaad tagtid xaggan oo kale ayaad tagi kartaa, insert ayaad tagi kartaa. marka insert-dan 4 qaab weeye. ma waxaad doonaysaa halkaa aad taagan tahay above korkeeda inaad soo gelisid row, waxaad doonaysaa inaad soo gelisid hoosteeda inaad soo gelisid, waxaad doonaysaa inaad bidixdeeda soo gelisid, waxaad doonaysaa inaad midigteeda soo gelisid. haddaan dhaho hadeer halkan aan taagnahay hoosteeda waxaad soo gelisaa bilowgeeda, hoosteeda waxaad soo gelisaa row. waxaan ku dhufanayaa halkan insert below oo ka uu soo geliyay. haddaan dhaho leftiga soo geli, inta badan leftiga iyo waxaa isticmaalaa right-ka waxaa isticmaala waxa loo yaqaano column-ka. okay wakaa column-ka ayaa isticmaala, laakiin labadan waxaa isticmaalaya maxay, row-ga isticmaalaya, labadan column-ka ayaa isticmaalaya. okay habka kalena waad soo gelin kartaa. okay marka rowga qaabka soo gelinaysa waan aragnay, aanu aragna bal column-ka qaabka soo gelin kartaa. column-ka waxaad soo gelin kartaa column-ka aad rabtid inaad soo gelisid, meesha aad rabtid inaad ka soo gelisid column-ka ayaad tagaysaa. mitalan baan kanan hadda highlight saaray, waxaan rabaa inaan halkan column soo geliyo labadan dhexdooda, kan iyo kan dhexdooda. dabeetana waxaan tagayaa halkan aan tagayaa, haddana plus baan ku dhufanaya oo ka mid buu soo geli. waxaan kaloo samayn karaa inaan xaggan ka soo geliyo oo aan dhaho intaan kaa dhex tago aan xaggan tago oo aan dhaho kaa aan taagnahay bidixdiisa waxaad kusoo dartaa column kale. waan ku dhufanaya column kale ayuu kusoo dara, kaa hadeer highlight garaysan kusoo dara. haddaan dhaho kaa aan hadeer taagnahay midigtiisa kusoo dar oo macnaha halkan kusoo dar midna, waan samayn karaa. waa kan insert right baan dhahayaa, waa kan mid kale ayuu soo geli. okay waanu soo gelinay row iyo column labada waan soo gelinay. shayga ugu xiga aan qaban doono waxa weeye inaynu row koobiyeyno, haddana inaynu cut dhahno, inaynu paste dhahno, row iyo column labadaba. okay marka ugu horeysa column ayaan koobiyeynaynaa, xog ayaan gelinaynaa. marka ugu horeysa xog ayaan gelinaa. marka ugu horeysa id. okay kan waxaan gelinaynaa waxa loo yaqaano name, kan waxaan gelinaynaa waxa loo yaqaano age, kan waxaan gelinaynaa waxa loo yaqaano date ama day. okay kan oo kale waxaan gelinaynaa waxa loo yaqaano amount ama salary kadibadhe. okay xogta markaan sidaa u xareyno waxaan doonaynaa xogta markaynu sidaa u xareyno waxaan rabnaa inaan column ama row aynu koobiyeyno oo aynu meel kala dhigno, ama aynu cut dhahno oo aynu meel kala dhigno. marka ugu horeysa waxaan koobiyeynaynaa column-ka id-ga ayaan koobiyeynaynaa. highlight ayaad saaraysaa. highlight-ka saa u saaraysaa maxay tahay, waxay tahay halkaa dushiisa abaad tegaysaa, fallaadha madow markay soo baxdo ayaad click dhahaysaa, dabeetana right click baad dhahaysaa. right click markaad tirahdid waxaad dhahaysaa copy. xaggan ayaan tegayaa,
right click ayaan dhahayaa paste ayaan ku dhahayaa wakaa column-kii ugu horreeyay haddaan xaggan aan dhigay cut waan dhigi karaa hadda waan koobiyey oo xaggan aan dhigay laakiin cut baan dhihi karaa kan name-kan ayaan hadda cut dhahayaa column-kaas oo dhan ayaan waxaan dhahayaa highlight saarayaa waan dul tegayaa right click baan dhahayaa dabeetana cut baan dhahayaa xaggan ugu dambeysa ayaan tegayaa right click ayaan dhahayaa paste ayaan ku dhahayaa okay labada hab waad samayn kartaa waxaad kaloo samayn kartaa labada qaab waad u samayn kartaa waxaan u harsan waxa weeye inaan dhilidno row column-na dhilidno table-ko dhanna dhilidno okay marka ugu horeysa xaggan ayaan tegayaa haddaan rabo column inaan dhilido halkaa dushiisa ayaan tegayaa highlight baan saarayaa dabeetana waxaan dhahayaa right click xaggan aan ka dhilidi karaa waa kan delete column-kona waan dhilidi karaa mid kale waan samayn karaa row waxaan rabaa inaan column-kona dhan dhilido anuu sidaa u dhex taagan kaasarto halka ay badboodayso ayaan xaggan tegayaa halkana soo furayaa dabeetana waxaan dhahayaa column-kaa haddii aan taaganahay oo dhan iga dhilid wuu dhiliday hadda waxaan rabaa row inaan dhilido waxaan rabaa inaan dhaho rowgaas oo dhan iga dhilid halkan aan tegayaa dabeetana waxaan dhahayaa delete row markaa sidaas ayaa u dhilidi kartaa sidoo kale table-ka waxaad u dhilidi kartaa inaad halkan tegatid ama aad adigoo halkaaga taaganba aad halkan soo furtid aan tago layout aad tagtid halkaas marka taagan tahay markuu saa kaa noqdo intaad halkan dhex tagtid halkaa tag layout dheh delete tag drop down-ka yar soo fur dabeetana waxaad tiraahdaa delete table-ka oo dhan iga delete table-ka oo dhan kaa dhilday intaa ayaa casharkeena caawa ku saabsanaa aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum